maamulka jaamacadda Admas ayaa maanta kulan la qaatay ardayda sanadkii dhamaaday ka soo baxay dugsiyada sare ee magaalada Boorama kuwaasi oo ku soo biiraya jaamacadda habsami u socodka munaasabadani oo ay ka qayb qaadanayeen ardayda dhamaysatay waxbarashada dugsiyada sare ee sanadkan 2016 isla mar ahaantaasina ay soo qaban qaabiyeen maamulka jaamacadda Admas faraceeda magaalada Boorama ayaa waxa kala soo qayb galay aqoon-yahano barofesoro iyo waliba mas'uuliyiin ka socotay maamulka jaamacadda Admas ee qaybteeda magaalada Hargeysa kulankani oo inta badan looga hadlay dhiirigelinta ardayda iyo xulashada kulliyadaha wax laga bartay ee jaamacadda ayaa ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Admas Professor Ahmed Abdullahi Tallan isagoo ardayda ku soo biiraysa jaamacadda uu iclaamiyay qaybaha cusub iyo kulliyadaha lagu soo kordhiyay jaamacadda isagoo arintaasi ka hadlayana waxa uu yiri jaamacadda Admas waa jaamacadda kaliya ee aqoonsan international community waxa loo yaqaan jaamacadda kaliya ee maanta aqoonsi buuxa ka haysata international community taasi waxa caddayn u ah ardayga barnaamijyada jaamacaddan qaata marka uu qalinjabiya waxa uu xaq u helayaa shahaado maaragtay adduunyada meel walba oo la mari karayo oo maaragtay recognition oo ah mid la aqoonsan yahay meel alla meesha adduunyada ka tago uu la tagi karaya sidoo kale semesterkani waxaan jecelnahay inaan daahfurno oo daahfuraynaa oo soo kordhinay koorsooyinka jaamacadda waxay ilaa 12 koors bahayd koorsooyin cusub oo soo kordhaya oo digriga waxa ka mid ah for example human resource planning course human resource management course oo master ama postgraduate jaamacadda oo ka baxaya marka semester laga bilaabo Admis Boorama waxay bixinaysaa postgraduate oo waxay ku bilaabaysaa course la yiraahdo human resource management waxa isaguna halkaasi hadal kooban ka soo jeediyay gudoomiyaha jaamacadda Admas faraceeda magaalada Hargeysa Professor Ihsan Umar isagoo ugu horeyn ardayda ugu hambaliyeeyay imtixaankii shahaadiga ahaa ee ay kaga soo baxeen dugsiyada sare sidoo kalena kala hadlay isku xidhnaanta guud ahaanba jaamacadaha Admas ee dalka Admas markaa waxa ay ku dadaashay in muqarrar manhaj curriculum dhisan ay diyaariso ma ahayn macalinku marka uu soo galo uu ku fikiro maxaan u dhigaa maadadaas waxa uu dhigayaa way cadda xitaa waxaa ku yaal chapter kasta ay inta saacadood u baahan yahay lagu dhigo marka waxa weeye qofkii haddii uu macallin yahay haddii uu arday yahayba waxa uu haystaa guidelines inta badan ardayda waxaanu siinaa inta badan marka ugu horreysay soo galaan maadooyinka ay qaadanayaan in faraha laga saaro curriculumka uu yahay si ay markaa maamulka iyo ardayduba ugala socdaan dee wuxuu macallinku ka booday iyo waxa uusan ku jirin ee uu meesha keenay intii uu socday kulankani ayaa iyaguna waxa sidoo kale halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Admas Professor Tasfan iyo waliba Professor Salomon oo ah hormoodka kulliyadda Social Science ee jaamacadda Admas iyaga oo ka sheekeeyay qaabka waxbarasho ee xeerarka iyo shuruucda jaamacadda gaar ahaan dhinacyada duruusta iyo imtixaanaadka waxaana intii uu kulankaasi socday sidoo kale halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay qaar ka mid ah maamulka iyo hormoodada kulliyadaha jaamacadda Admas kuwaasi oo ardayda u soo bandhigay macluumaadka kala duwan ee lagu baranayo qaybaha ay ka kooban tahay jaamacaddu ugu dambeyntiina waxa halkaasi hadalka soo gabagabeeyay Professor Hussein Abdullahi Maxamuud oo halkaasi ka soo jeediyay hadallo ku aadan dhiirigelinta aqoonta iyo tacliinta heerka jaamacadeed ardayda cusub ee ku soo biiraysa jaamacaddani Admas hamigaagu waa hadduu dheeryahay haddii dugsiga sare uu kugu adkaayo soo dhamayso ay ahayd war dugsiga sare talo goormaad dhamaynaysaa weliya gabadhba taa waad dhamaysa nihaaya qofkii halkaa ahaa hadafkiisu uu gaaray qofka hadafkiisu maanta uu yahay inuu jaamacad dhigto waa taagan yahay ma digribu markaa ku egyahay haddana hadafkaagu waa laga sii sarreeyaa iyadana master baa ka sarreysa markaa tan maanta aad taagantahay aad gaadho ma halkaasay haddana ku egta maya haddana PhD baad usii gudbaysaa doctor baa la yidhahdaa markuu halkaa gaadho haddana ma halkaasu ku egyahay waa inaad haddana wax qortaa ood research baadhaa ood associate professor haddana noqotaa
guntii iyo gebagabadiina ardayda ka soo baxday dugsiyada sare ee dalka sanadkan 2016 ee ka soo qayb galay kulankaasi iyo mas'uuliyiintii halkaasi ku helinayay ayaa waxay isdhaafsadeen su'aalo la xidhiidha waxbarashada jaamacadda iyo weliba qaybaheeda kala duwan. waa Ibraahim Cabdilaahi Ibraahim Suxufi telefishinka caalamiga ah ee Raya TV magaalada Boorama.